ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta dawo gaarsiiyay cisbitaalka Galguud ee magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug isagoo ka jawaabaya codsi kaga yimid maamulka cisbitaalka madaxa xukuumadda Galmudug iyo agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee Galmudug ayaa goobjoog ka ah halka ra'iisul wasaare Khayre dawada ugu wareejinaya maamulka cisbitaalka si loo horumariyo adeegyada caafimaad ee cisbitaalka u hayo bulshada Soomaaliyeed ra'iisul wasaare Khayre oo cisbitaalka Dhuusamareeb booqday 3 bishii Julaay sanadkan ayaa u kurgalay xaaladda cisbitaalka lana kulmay maamulka cisbitaalka isagoo ka xog wareystay maamulkuna u soo gudbiyay intaasi kadib baahida dawo oo ay qabaan waxaana xilligaasi ballan qaaday in dawladdu ay wax ka qaban doonto baahida degdega ah ee ka taagan cisbitaalka agaasimaha guud ee cisbitaalka oo warbaahinta qaranka la hadlay ayaa sheegay in baahi weyn oo qabeen dawadan isla markaana ra'iisul wasaaraha uga mahad celiyay sida dhaqsada leh uga jawaabay codsigoodii ahaa inay helaan dawo wafdiga oo ra'iisul wasaaraha soo booqday cisbitaalkan bari horena noo yimid run ahaantii si wanaagsanna u eegay baahidanada aan u sheegnay iyadoo qoraalana aan u gudbinay maantana muxuu ahay ra'iisul wasaaruhu muddadii uu joogay kullayba sida muuqata shaqo ku jiray shaqadiina waxa weeyaan wuxuu mid ka mid ah waxay noqotay isbitaalka baahidiisii markii ugu horeysay oo xukuumadda ay inta timaado wax ka qabato arintii u horeysay inuu galabta sameeyay oo isbitaalka xoogaa dawaaha loo keenay runtii baahiyadu waa badan yihiin aad ay u fara badan yihiin daawada kaliya maaha laakiin waa bilow fiican waayo muxuu ahay hal mar waxa dhan lama wada qaban karo run ahaantii laakiin waa tallaabo wanaagsan oo muxuu ahay runtii uga mahad celinayno xukuumadda iyo dawladda federaalkaba gaar ahaan ra'iisul wasaaraha oo dareemay runtii in meesha baahi aad ay jirto halbigida ugu weyn tubta horumarinta arrimaha bulshada oo kamid ah afarta tub qaran ayaa waxa kamid ah in dawladdu ay bixiso adeegyo caafimaad oo tayo leh kuwaas oo qayb ka qaadanaya caafimaadka iyo badqabka guud ahaan bulshada Soomaaliyeed Nasra Bashiir Cali warbaahinta qaranka Dhuusamareeb